من ربها قلبي. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل، للقلب سعادة من رضا، والكون عطره من شذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. walaalayaal mar kale ku soo dhowaada mu'tamarkeennii 15aad oo ay soo wada qabaqaabiyeen waddamada Scandinavian-ka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisii inoo noqday sanadkii 15aad oon sidan oo kale u qabanno. marka dhammaan intiina waddamada kala duwan ka timi ama waddanka lagu qabanaya Sweden joogta, mar kale ku soo dhowaada mu'tamarkii 15aad iyo muxaadaradii labaad. muxaadaradeenna labaad sida aad waraaqaha ku haysataan jadwalka inoogu qoran waa muxaadaro ku saabsan baari u noqoshada waalidka. waxaana inoo soo jeedinaya sheekh maxamed idris ood hore wada taqaanaan oo iga baahnayn hadda inaan tacriif badan idinka siiyo, oo uu deegaankiisu yahay dalka Saudi Arabia. marka insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh maxamed idris muxaadaradii labaad ee mu'tamarka. sheekh maxamed idris falyatafadal mashkuura. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kulankan aan isugu nimi ee mu'tamarkan sanadlaha ah ee masjidkan barakaysan aan isugu nimi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga dhigo kulan barakaysan oo ilaahay naxariistiisa iyo sakiinadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyo. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu carabkayga qalbigayga ku sugo kelimadda xaqa ah ee sawaabka ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbiyadiina iyo dhegihiinaba u furo, nagana dhigo alla subxaanahu wa tacaala kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. intaa kadib mowduuca kelimadan wuxuu ku saabsan yahay u baarifalidda waalidiinta. wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sidaan uga hadli doono marka u horeysa inaan fadliga uu leeyahay birul waalideynka ama waalidiinta oo loo baari noqdo, fadliga ay leedahay ilaahay agtiisa. mar labaadka inaan ka hadlo noocyada loogu baarifali karo. qodob saddexaad wuxuu noqon doonaa aadaabta ay leedahay u baarifalidda waalidiinta, aadaabta la rabo inay laazimaan caruurtu waalidkood si ay ugu baari noqdaan. qodobka afraad wuxuu noqon doonaa hooyadu xagga baarinimada inay aabbaha
ka horeyso oo ay kaga xaq leedahay iyadoo labadooduba ay xaq leeyihiin. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa inaan bal wax ka aragno dadkii wanaagsanaa ee inaga horreeyey bal siday u baari fali jireen iyo baarinimada siday u samayn jireen inaan iyadana wax ka jalleecno. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa geeridooda kadib sida loogu baari fali doono. ma noqonayso keliya noloshooda keliya baarinimadu xataa haddii ay geeriyoodaan oo fursadii ku dhaaftay ama aadan ku baraarugsanayn geeridooda kadib ayaad baari u fali kartaa. arrinka lixaad aan ku soo khatimayno waxa weeye in laga digo arrinka ka soo horjeeda oo ah in waalidka lagu caasiyo ama aan baari loo falin oo cuquuqul waalidayn waxa la yiraahdo iyo ka digiddiisa inaan isagana aan wax yar markaa ka taabanno iyo sheekooyin ku saabsan. haddii aan bilaabo marka hadalkayga inta aanan u gelin qodobadaas inaan si tafsiil ah wax uga taataabto waxaan jeclahay inaan aayaad qur'aan ah ka horumarsado insha allahu tacaala maadaama qur'aanka kariimka ah uu yahay midka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga dhigay caafimaadka iyo hanuunka. ilaahay nooga dhigay jidka toosan ee loo baahan yahay inaynu qabsanno. jidka toosana haddaynu raacno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu ballan qaaday inuu jannada noo daadihinayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الحمد لله. waxaan ka hadlaynaa walaalayaal waa waalidiinta iyo in loo baari falo. ilaahi subxaanahu wa tacaala waalidiinta fadligooda iyo baarinimadu fadliga ay leedahay nusuus badan buu alle subxaanahu wa tacaala ku sajiray qur'aankiisa kariimka ah. qaar ka midana aayadihii hadda aan dhegaysanay ayaa aad ka arkayseen oo laba nebi oo nebiyada ka mid ah, nebiyullaahi yaxya wa nebiyullaahi ciisa calayhim assalaam, labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay wiilal baariyaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala yaxya calayhi assalaam wuxuu yihi wa baran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran shaqiya walam yakun jabbaaran casiya. caasi ma ahayn, jabbaar mid hadal adag oo camal adag
وعمل حن ما هاي وحوها مد باري والدينتي سواه نبي الله عيسى أنا إلهي سبحانه وتعالى وكان عرف كيسين وشيء إسقو ير وحندولك كجرة إنه يراهدو وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وعن الكاكار كينا إلهي سبحانه وتعالى إنه دينا عنقدت صيوه قفكو هدانو باره النقون وحو النقون يا جبار شقية معاصية تاسا دينا عكلاته أطالة marka inuu baari noqdo waalidiinta baari u ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali kaga noqdo waxa bedelkeeda ah oo maqaabilkeeda ka soo horjeeda waxa weeye inuu noqdo jabbaar shaqiya oo khayr lahayn oo ayaan daran walaalayaal waalidiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sabab uga dhigay joogitaankeena iyo jiritaankeena adduunka inaan joogno labadaas qof ee aabaha iyo hooyada ah ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala unkeena sabab uga dhigay isagoo dadka uumay wuxuu sabab uga dhigay aabaha iyo hooyada marka waa labada qof oo sabab u ah inaad jirto oo bacda Allah subhanahu wa ta'ala kugu fadli badan oo adiga kugu leh abaal kugu leh sidaas darteed ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xiriiriyay markaad ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celiso ilaahay u shukrido waa inaad waalidiinta iyagana u shukrisaa oo mahad celisaa maxaa yeelay khalqigii umidda ahaydna oo koowaadna ilaahay baa subhanahu wa ta'ala iska leh sababtii adiga jiritaankaaga ahaydna iyagu ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab uga dhigay saas darteed buu ilaahay isku xiriiriyay wixii anishkur li wali walidayka cid kale too ilaahay ku soo xiriiriyay mahad celintiisa ma jirto waalidiinta ahayd anishkur li wali walidayka ilayya almasir Allah subhanahu wa ta'ala ayada badan buu marka ku tilmaamay oo ku xiriiriyay tawxiidkiisa iyo Allah subhanahu wa ta'ala garashadiisa xaqiisa in la garto oo xaq koowaada oo ah in la caabudo oo si xaq ah loo caabudo oo aan cid kale la caabudin ayuu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku xiriiriyay waalidiinta iyo xaqooda in iyagana la ogaado oo la ilaaliyo sidoo leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana fi ibadati ilahi subhanahu wa ta'ala labadii amar oo ugu darnaa amar lays amro iyo wax la iska reebo waxa ugu daran waxa weeye in lagu faro cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala amarka ugu weyn oo laga reebana waa inaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala u shariik yeelin cibaadadiisa wuxuu ku xajiyay Allah subhanahu wa ta'ala labada waalidin loo ihsaan falo wa wasayna al-insana wa bil walidayni ihsana ayada kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri wa wasayna al-insana bi walidayhi ihsanan insaanka waxaan faraynaa oo la faray labada waalid inuu ihsaan u falo yaani inuu wanaag iyo baarinimo iyo tixgelin iyo qadarin iyo ixtiraam iyo u adeeg iyo daacad inuu kula socdo labada waalid dhashay markii sidaas si guud ahaaneed loo faray ayaa hooyada marka si gaar ah Allah subhanahu wa ta'ala aayad badan ugu tafsiiliyay iyada xaqeeda oo si gaar ah lan waxyaalo badan ayay aabihii kala gaar noqotay iyaga oo labaduba ku shirkoobay qodobkaas si gaaran uga hadli doonaa insha Allah wuxuu kale ilaahay subhanahu wa ta'ala u leeyahay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wuxuu ilaahay isku xiriiriyay cibaadadiisi oo nafaray inaynu isaga cibaadada u khaalis yeelno iyo ihsaankii waalidiinta loo falay waliba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku xiriiriyay ba'daas wa bil walidayni ihsana mar walbaba xiriirin ihsaan xiriirsan oo aad la dul taagan tahay iyo daacad aad la dul taagan tahay wixii aan macsi ahayn iyo quudin iyo dhinac walba oo wax wanaaga aad ku xiriirinayso inuu noqdo xiriir arin aan kala go' lahayn oo aad la dul taagan tahay oo aad la dul joogto oo aad ugu adeegayso oo aad ku qadarinayso
oo baarinimadooda aad la dul taagan tahay inuu noqdo arrinkaas waxaa kaloo halkaa laga fahmayaa inuu noqdo ixsaankaas sidayan adigaba kuu dayici jirin markii aad yarayd ooyan meel cidlaa kaaga tegi jirin inaadan meel cidlaa kaga tegin meel cidla ah inaadan kaga tegin zamanadan dambe walaalayaal waxaa badatay xuquuqul waalidiinka waana calaamaadka saacada waxaa badatay ninku inuu ilmihiisa ka hormariyo oo iyaga raaligelintooda wax walba ku bixiyo oo iyaga uu maaragtay xoolo iyo tabar wuxuu hayo oo dhan geliyo waalidkuna ay iska yeeshaan wixii hadhow lagama maarmaana wixii laga maarmi waayo inay iyaga maaragtay haddii guri la rabo haddii lacag la rabo haddii dahab la rabo haddii xoolo kale la rabo haddii meel wanaagsan la seexanayo haddii meel loo dhoofayo haddii meel la aadayo kullu waxaa leh ilmihiisa iyo xaaskiisa ama waalidiinta wixii hadhow intaa ka soo hara oo futaadka ah haraaga wixii soo hara ayaa maaragtay iyagu ay wax ku leeyihiin arrimahaas waxay noqdeen arrimo shaa'ic ah oo badan oo fara badan waayadan dambe iyo zamanadan dambe waana arrin halisa oo mawaasiintii isku qaldaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka manaasishuu dhigay iyo qof walba meeshuu dejiyey aan la dejinayn allah subxaanahu wa tacaala waalidiinta u ixsaan falidooda iyo nafaqadooda cibaadadiisii buu ku xiriiriyay allah subxaanahu wa tacaala baynamaa ilmaha hal meel ama laba meel adiga lagaaga dardaarmay laakiin waalidiinta la adkeeyey dardaaranka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dardaarmay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta meeshuu dhigay iyo dardaaranku ka dardaarmay in la adkeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa haddaan la adkayn waxaa ka dhalanaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu caroodo hadduu caroodana alla subxaanahu wa tacaala waxbuu ciqaabaa naar buuna leeyahay alla subxaanahu wa tacaala uu dadka cusaada ah ee caasiyey awaamirtiisa ka leexday oo alla subxaanahu wa tacaala u diyaarsaday walidaalika ayaa arrinkaasu arrin halisa yahay haddii aan xilla iska saarin oo la dareemin amaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhowr xadiis baan ka soo qaadanaynaa bal isaguna meesha uu dhigay waalidiinta iyo ixsaan falidooda waalidiinta u ixsaan falidoodu waa sabab weyn oo jannada lagu galo wey albaabada jannada albaabada ugu waaweyn ayay ka mid tahay waalidiinta u ixsaan falidooda iyo baari u noqoshadooda inaad ku gasho oo acmaaloo dhan ka horraysa acmaaloo dhan ka hormariyay nebigu calayh isalaatu wasalaam siduu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu muslim iyo tirmidi bay siday warinayaan wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ragima anfuh uma ragima anfuh uma ragima anfuh yacni qofkaasu waa qof dulloobay oo afka ciidda la galay dullinimo oo dhacay oo kufay oo khayrka xaggiisiiba aan nasiib ku lahayn waan yaabay abu hurayra radia allahu canhu wuu yidhi waan yaabay man yaa rasuula allah waa kuma kan saa u dulloobay oo hoogay oo halaagsamay qaala man adraka waalidayhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhimaa qofkii soo gaaray labadiisii waalid oo weliba da' ku soo gaaray midkood ama labadoodiiba uma lam yadkhul iljanna oo haddana aan janno gelin say u suurtoobi kartaa macnuhu waxa way say ku dhici kartaa qof janno haystay oo jannadii albaabkeedii geli waayey say ku dhici kartaa waa dullinimo
iyo ayaan darro iyo hoog iyo halaag. marka waa sabab weyn oo janno lagu galo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada jannada uu furay. arrin kale waa arrimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha ugu jecel yahay ayuu birulwaalidaynku darajaadka ugu horreeya ka gelayaa. sida ku cad xadiiska cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu ee bukhaari iyo muslim bay warinayaan, wuxuu leeyahay sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam ayu lcamali axabu ila allahi, camalka kee ilaahay ugu jecel yahay? qaala alsalaatu calaa waqtiha, alsalaatu calaa waqtiha, salaadda oo waqtigeeda lagu tukado. qultu uma ayu, maxaa ku xiga rasuulkii allow? qaala biru lwaalidayn. qultu uma ayu? qaala aljihaadu fi sabiili illah. waa xadiis muttafaq calayh. xadiiskaas wuxuu geliyey darajadii labaad ayuu geliyey, bal xataa jihaadkiibuu ka hormariyey. axaadiis kalena way ku caddahay inuu jihaadkii xataa ka horreeyo, sida ku cad xadiiska cabdullahi bni camr bn caas radia allahu canhuma. wuxuu yidhi aqbala rajulu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nin baa nebiga alayh salatu salaam u yimi, faqaala ubaayicuka cala alhijrati waljihaad abtaqi alajra min allahi tacaala. waxaan kugula baayactamayaa oo beeca kugula gelayaa, ballan adag kugula gelayaa rasuulkii allow, jihaad iyo hijro inaan kuu soo hijroodo anoo ajar ilaahay kaga raba. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intaanu su-aashii uga jawaabeen, hal min waalidayka axadun xay? labadaadii waalid cidi ma ka nooshahay, mid ma ka nool yahay? qaala nacam bal kilaahumaa, labadoodiiba waa joogaan buu yidhi. qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fatabtagi alajra min allahi tacaala, oo ajar baad ilaahay ka rabtaa? qaala nacam. qaala farjic faaxsin suxbatahumaa, sow ajar ilaahay kama rabtid oo ma raadinaysid oo hijradan iyo jihaadkan aad leedahay waan kugula beeca tegayaa, waxaad ka rabtaa ajar ilaahay? haa, noqo oo iyaga wanaag iyo ixsaan kula soco. suxbatahumaa, la socod way ku lamaanaan way, maaha xaggaasaan ka tuuri anna xaggaasaan aadi, mashriq iyo maqrib baan ku kala tuuri, warna kama hayo waxna kama hayo maya. wuxuu yidhi faaxsin suxbatahumaa, la socodkooda iyo la jirkooda hagaaji iyo adeegooda. waa xadiis muttafaqan calayh ah, muslim baana lafdigaa iska leh. riwaayad kaleeto wuxuu yidhi nebigu alayh salatu salaam markuu ninku u yimi oo jihaadka uu u idin dalbaday inaan kula jihaad galaan rabaa rasuulkii allow, qaala wuxuu ku yidhi axayun waalidaaka, labadii ku dhashay ma nool yihiin? qaala nacam. qaala fafiihimaa fajaahid, iyaga ku jihaad. yacni jihaadkaagu waxa weeye iyaga inaad u ixsaan fasho, u baari fasho, u adeegto, hagaajiso, wanaajiso ayaa u noqon. xadiis afraad nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tirmidi uu sanad saxiixa ku wariyey, wuxuuba caddaynayaa waalidiinta raalinimadooda inay raallinimada ilaahay ku jirto, caradoodana caradii ilaahay subxana wa tacala inay ku jirto. bimacnaa haddii waalidiintii raalli kaa yihiin oo qalbiga ay kaaga ducaynayaan, ilaahayna subxana wa tacala raalli buu kaa noqon. haddii ay iyagu caraysan yihiin oo qalbiga wax ku haysta, ya waalidku badanaaba ma muujiyo caradiisa. hooyadu khaasatan waxa weeye insaanka ama makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan korkiisa uu saaray oo ku abuuray oo diyaar u ah inuu wax walba huro, waxna aanay uga soo noqon haba yaraate. makhluuq kasta oo aad wax u wanaajiso oo wax u samayso, xaaskaaga, ilmahaaga, asxaabtaada, tolkaa, dadkaa, kullu nin walbi waxa weye waxbuu kaa rabaa. hadduu waxa kaa waayo ku nac, laakiin iyadu ma ku jirto, waalidkaa kuma jiro. bani aadamka adduunka ugu liita haddaad tahay, ugu nacsan, waa ku rabaan, waa ku jecel yihiin, waa ku kolkolinayaan, cirkay ku geynayaan, xidigaha ayay ku saarayaan.
wax walba haddaad dadka siiso oo iyaga aan waxba uga soo noqon oo ay kugu soo tacbeen oo kugu soo rafaadeen oo dartaa ay dhiig uma tageen isla mar ahaantaas haddana diyaar waxay u yihiin weli inay wax walba bixiyaan oo kuu huraan adiga waa makhluuqa sidaasa oo aan waxba doonahayn waa makhluuqa sabirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala un keliya uu uga abaalgudi karo cid ugu abaalgudi kartaa ma jirto bani aadama yaa u abaalgudi kara hooyo yaa u abaalgudi karaa haddaad dahabka adduunka oo dhan siiso uma abaalgudi kartid haddaad xoolaha adduunka yaaloo dhan dusha kaga shubto ma abaalgudi kartid in yar xataa abaalkeeda kama gudi kartid cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu arkay nin hooyadiis dusha ku sida garbaha ku sida oo la dawaafaya kacbada kula dawaafaya oo xajkii la socda oo dusha ku sida markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumarow hooyaday saasaan u sidaa buu yidhi xajka saasaan ku keenay abaalkeedii ma guday markaasuu yidhi hal harraati oo caloosheeda markaad ku jirtay aad ku dhifatay maadan gudin harraati miyaadan arag xaaskaagu markay uurka leedahay oo maalin walba markuu uurku soo kor caloosha soo weynaato tacabkeeda iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda way soo siyaadaysaa ma seexan karto oo si wanaagsan uma jiifan karto oo si fiican uma fadhiisan karto oo markay kacayso waa rafaadsanta oo markay fadhiisanayso waa rafaadsanta saasoo ay tahay wax walba aday kaaga farxad badanta inaad sidaa u dhibto way ku macaansanaysaa cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi maxaa yeelay adigu wuxuu yidhi dusha waxaad ku sidaa adoo isleh goormay kaa degaysaayo aad dhulka dhigaysaa jecel inaad dushaada ka dejiso ood dhulka dhigto iyaduna waxay ku qaadi jirtay iyadoo jecel inaadan dusheeda ka degin ee ay ku sido oo dusha kugu wado markaynu weynaanay oo xoog yeelannay oo tabar yeelannay oo xaasas yeelannay carruur yeelannay ayaan waxaan u malaynay inaan sidan ku dhalannay oo sidan annagoo ah aan adduunka nimi saas darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalidayn raallinimada ilaahay waxay ku jirtaa raallinimada waalidiinta carada ilaahayna waxay ku jirtaa carada waalidiinta waxaa ka mid a fadligiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo sabab dhibaatooyinkaaga iyo rafaadka iyo kurbooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga faydo oo dhibaato kasta oo culus ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha uu dadka kaga saaro inay ka mid tahay birrul waalideynka waxaana u daliilay xadiiskii saxiixaynka 3 nin oo dadkii hore ah uu nebigu calayhi salatu wasalaam nooga sheekeeyey oo god ku dumay meel cidla ah iyagoo maraya oo yidhaahdeen maanta godkan waxayna maqlaaya iyo meelaan uga bixi karnaa ma jirto camalka ugu wanaagsan qof walbo waad samaysa bal soo sheeg waxaa ugu horreeyey ninkii baarinimada waalidkiisu falay oo habeenkii oo dhan caanaha la dul taagnaa soo lisay caanihii ay seexdeen ayuu habeenkii o dhan korkooda la taagnaa oo aanu lana fadhiisan cid kalena siin haddaan arrinkaa ilaahay dartiis u sameeyey ilaahu naga fayd buurtii baa dhaqaaqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinacu uga furay amaa walaalayaal siyaabaha baarinimadaas loo gudan karo oo anwaacdiisa ah aad bay u fara badan tahay siyaabo badan ayaad ugu baari fali kartaa waalidiinta waxaa ka mid ah wanaagga iyo xiriirinta iyo nafaqaynta oo ixsaanka darajada ugu horraysa ah ee lagu farayo waxaana hoostiisa soo gelaya wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan wax walba oo ixsaano wanaag ah inaad ku hormariso oo iyaga kaga bilowdo intaadan carruurna siin
xaasna siin cid kalena siin waxa kaleeto oo ka mid ah inaadan agtooda iyo hortooda aadan dhibsan waxa ay ku oranayaan ama waxa ay ku farayaan ama waxa ay doonayaan talaa inaadan muujin inaad nacayso oo kahanayso waxaa ku taala halkan walaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma waqul lahuma qawlan kariima waxaan qowl kariim ahayn male hadday ku garaacaan iyo hadday ku caayaan iyo hadday si kale ku dhiraahdaan iyo waxaadan raalli ka ahayn hadday sameeyaan giddiba waxa weeye adiga xaggaaga kelimad inaad muujiso hortooda ah aad ku muujinayso inaad waxaa nacsan tahay amaad kahanayso amaad diidayso ama aadan rabin arrinkaas inaad muujiso kuma bannaana bal waa inaad aad dhulka isugu dhigtaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wakhfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kama weliba ducaa ugu sii daraysaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira xaggee arrinkaasu ka joogaa marka aynu waalidiinta markayna la hadlayo xaggaan usii jeednaa gabadha xaggay usii jeedaa marka hooyadad la hadlayso ninkuna wax kaluuba la hadlaaya marka waalidkii la hadlaayo hada laysa min albir baarinimo ma arrinkaas daa isu malaynayso baarinimada ama cuquuqu inuu yahay keliya inaad ama caydo ama xumayso ama garaacdo keliya maaha cuquuqu intaa keliya maaha walaa taqul lahuma ufin wakhfid lahuma janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira inaad dhibsato haba yaraata ama muujiso xataa maaha markay hadlayaanna waa inaad u dhegaysataa adigoo dhan oo wada dhegaysi ah dhega ah jirkaagoo dhan waa inuu wada dhega yahay marka ay hooyadu hadal soo qaado ama aabbuhu hadal soo qaado waa inaad wada dhegaysataa kulligaa waxaa kaleeto oo baarnimadaa ka mid ah inaadan codka kor ugu qaadin codkaaga codkooda inuu ka sarreeyaa marnaba maaha hooyada inuu hadalkaagu ka sara maro marnaba maaha ama aabbaha ka sara maro waxaa kaleeto ka mid a hadal buu wataa ama hadal bay wadataa inaadan ka goyn hadalka ilaa ay dhammayso baarnimadu taas waad ku cibaadaysanaysaa waxaasoo dhan waa cibaado ilahay baad ugu dhowaanaysaa leanna baarnimo hadalka inaadan ka goyn inaad dhegaysato inaadan la murmin oo la doodin hadalka ku celcelin hadhow haddaad rabto siyaabo kaleeto arrinka u maslaxa oo u tartiibi oo dad kale u adeegso walaalaha la adeegso cid kale la adeegso inaad qanciso laakiin inaad la muranto saas maaha saad sheegaysaa waxba kama jiraan waxba ma fahmaysid duq yahay waxaad fahmaysa ma leh oday yahay waxaad garanaysa ma leh kada inaad la muranto ma aha abadan laysa min albir abadan waxaa ka mid ah anwaacda baarinimada hadday hurdaan inaadan hurdada ka iscaajin ama ka kicin ama ku qaylin ilaa ay ka bogtaan raaxadooda ee ay ka bogtaan had iyo jeer inaad tusiso inaad ka hoosayso oo u baahan tahay oo dhegaysanayso hadalka waa inaad iyaga ku hormarisaa socodka waa inaad iyaga ku hormarisaa aadan ka horrayn oo aadan ka hor dhicin adoo ixtiraam iyo qadarin iyo weynayn arrinkaa u samaynaa intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha baarinimada aad ku samayn karto waxaa kaloo ka mid ah inaad had iyo jeer u mahad celiso oo u shukriso oo u ducayso salaad walba aad tukato iyo waqti walba aad soo dhaqaaqdo maxaa yeelay shukrigooda ayaa ilaahay shukrigiisa ku xiriiri an ishkur lii waliwaalidayka sidaan sheegna waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira marka waa inaad ugu naxariisataa oo aad ugu mahad celisaa waxay sameeyeen hooyada waxay si gaara u leedahay baarinimada 3 qaybood 4 qaybood marka loo qaybiyo 3 meelood hooyada nasiibkeeda u leh bimacnaa bimasiid siyaado ayay u leedahay baarinimo ayadu oo ninka markuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni suxbati aw bixusni saxaabati yaa dadka ugu xaq leh
wanaag inaan kula socdo wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaam ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk saddex jeer buu hooyadiisii qaala uma man qaala uma abuk aabbihina hal meel balasi maxaa yeelay markay waalidnimadii iyo abuurkaagii iyo jiritaankaagii iyo korriimadaadii ay ka wada qayb qaateen arrimo gaar ah oo adag bay iyadu la gaar noqotay waxay la gaar noqotay xamligii iyada uurka ku qaada aabbu wax kama qaadan waxay la gaar noqotay dhalmadii iyadaa ku dhashay oo foosheedii ayaad ku dhalatay waxay la gaar noqotay nuujintii waxay la gaar noqotay intii kaleeto oo la xiriirtay hooyada iyo intaad yarayd ka warhayntaadii ayay la xiriirtay oo aabbuhu intaasba aan waxba ku lahayn intaa iyada gaar u leh saas darteed ayaa ilaahay waa caadileh iyada saddex qaybood baarinimadiisii marka waa iyada si gaar ah in loogu sameeyaa khaasatan iyadoo qof daciifa oo dumar ah xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin ilaahay subxana wa tacala iyadoo daciifa baa haddana xamligii iyo dhalitaankii iyo nuujintii iyo waxaasoo dhammi waxay u siyaadiyeen dacfi markaasay ku sabirtay oo ku dulqaadatay saas darteed ayuu yidhi nabigu calayhi salatu salaam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat kan hooyada keliya ku hadlay halkan maaha aabbahana in caaqnimadiisa la ogol yahay laakiin waxaa lagu tusayaa hooyada inay ka sii daran tahay xaalkeedu inuu ka sii daran yahay oo halis yahay waxaa kaleeto oo ka mid ah anwaacdaas aynu ugu xisaanfalayno walaalayaal in amarkooda iyo dalabkooda iyo umuurahooda lagala hormaro dadka kale yani haddii raashin la qadimayo iyagaa la hormarin haddii cid wax laga bilaabay iyada laga hormarin haddaad safar ka timaad iyada ka bilaabay iyagaad ka bilaabaysaa wax walba iyagaad ku horumarinaysaa hadalka iyagaad ku horumarinaysaa iyagaa lagu tixgelinayaa inaad naftaada kula jihaado raalinimadooda sidaad u heli lahayd oo qalbigooda xataa haddii ay kayra muslimiin yihiin xataa haddii ayna muslimiin ahayn wain jaahadaaka calى an tushrika bima laysa laka bihi cilm falaa tuطichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufan buu yidhi ilahay kuwii gaalada ahaa maxaa yeele waalidiinta xaqooda marna ma dhacayo markay weynaadaan waxay sii yeelanayaan xuquuq intaa ka sii weyn oo u dhimrin iyo u tartiibin iyo qalbigooda faraxgelin hadiyadda iyo waxsiinta iyo waxaanay filanayn uqaadidda iyo meelaha ay jecel yihiin raadinteeda arrimahaasoo dhan iyo ka ilaalinta wax kasta oo dhibaya marka ay weynaadaanna waa arrin looga baahan yahay habeen iyo maalin inaad ku soo jeedo oo aad ka warhayso maxaa dhibaya ma dhaxan baa hays ma kulayl baa haya xaggay seexdaan xaggay ku baryaan maxay cunaan maxay cabbaan maxay fuulaan maxay socdaan maxaa jira xaalkoodu see yahay inaad arrimahaasoo dhan waa arrimaha baarinimada lagu leeyahay dadka qaar baa waxay isaga haystaan inay tahay baarinimadu xogaa masruuf ahoo la siiyo keliya walaysa hada faqat baarinimadu intaa keliya ma baarinimadu intaa keliya ma waa kala gaar kala jaad weeye xaq inaad gudato oo aadan caaq ahayn oo aad masruuf u dirto laakiin inaad baarinimadii jannada lagu geli jiray shaqaysataa shay kale waa adeer maaha saad u malaynaysa maaha shaka baarinimada uu leeyahay nebigu calayhi salatu salaam janna lagu galay waxa weeye tii uu yidhi alzim rijlahaa fasama aljanna lugteeda hoosteeda joog buu yidhi jannadii halkaasay taalla maxay tahay lugteeda hoosteeda joog ya waa arrimihii hadda aan soo sheegayno yaan lagaa waayin agteeda waxay doonayso waxay u baahan tahay ukeen raadi hooyo haye xaggee u baahan tahay maanta xaggee ku geeyaa yaa maanta yaa soo ziyaaranaysaa xaggan kaaga keenaa alaabtan xaggen kaaga soo qaadaa maxaad jeceshahay maxaad cabbaysaa maxaad cunaysaa xaggee seexanaysaa xaggee ku geeya xaggee kaa soo qaadaa alzim rijlaha waa ka ya maaha xooga masaariifa halkan laga tuuraayo waa arrin fiican laakiin baarinimada darajadeedii maadan gaarin mana haysid waddadeedii mana haysid nafaqada waa waajib nafaqadood qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayn walaqrabiin
هويدا يا أقربينتا مثلا خالد أو كذا هبريرت وبمنزلة الأم بالنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ننكلنا وويدي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أو يميو دنبي وين قلي كاسوير هويدا من نوشاي كاسوير ما قال هبريرتا من نوشاي كاسوير ها كاسوير ماشي هويدا إذا جوكت إذا حرير waxaa kaloo ka mid a baarinimada anwaacdaas ood ugu falayso isti'daanahumaa qabla safar inaad ka idin qaadato safar haddaad gelayso cajiib ma weydiisaan hooyada iyo aabbaha ma la weydiiya haddaad meel u safrayso ama meel aadayso jaamacadaad aadi meel kalead aadi shaqaad aadi waadanbaad aadi ما لو ويديها مس حسابته وكم جيران استئذانهما قبل سفر انت هذا المال وبحن وان لو ويديه هذا يكون اذمان اهلا وسهلا هذا اذن ويان وان ترادسو سدا اذن كودا كو هلي لهي اذن كودا سدا كو هلي لهي هذه قال واك جوغيس ارنكاس الا انه جهادكو فرض عين نقضه مركان iyo xajka oo fariida isaguna ah fariida ilaahay ah ka waraysa labaas muwaafaqado kuma xir laakiin wixii ka soo haray la budda waxa kale oo kamid ah inaad u ducayso ama joogitaankooda ama geeridooda kadib waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran inaad kula xiriirto waxa kamid ah walaalayaal aadaabtaas aad ilaalinayso آداب بدن أو لو باهي يقفكون كحرية أو بارهن مضاء لكن معناها ماشي يلا وحوية هدينا أم بهين والدين تيبا إينا نسأرك أما إينا لبتشوجن أما هو يدي إينا لجوجن سعر ما هنقص من كرنا بارهن مضن يوحى كان جنال وش قيصني حقن كين الناس كويلينا ما بهينا مركا إن والدين تي لجور هي خاصة مركي وينادان والله إلى الشضه وجنة كوس عطاء أو كوجوك تمشى إن دراتته إني كأفشوجان وأهرن لبها هي إن لقد داله وحكم إذا أدبتها مركل الله يصان شجني وناجنا تقول هذا الشيء وجه جودة إن هذا وجه أخذودين حتى أديكوا على سنة عندها أذو غفيرين أو غجبين إن هذا إلى على الصه شرفت هذا يا مالك هذا يا مجع هذا إن هذا إلى على الصه إن كو عمل فشو حلالي يوحي أدسلده ويفرح قلين كرتاه إن كهر نعضه توصى ميسو سياد مثلا إن دو أديكتو وحصو قدو ألاب وكانتو حيالها صودا وحي كما قانو علمية أدكو كردسو إجنكو قاري لهاين سترتيب وآداب ما هسي كبير حما تقانين حما جهلي ويوحد ودان يعني هدي كلا هدلان أما كو يران إن مركيبة أجيب تويه وحول بعد كهر مريس وحول بعد كهر مريس بسرعة سيدا قد أقصي بدينا وجبته وآتر هذا هيا هاي هيا أب هذا كل جوابته ما بعودين هذا نغير هنا هذا جالسو أصدقاء هذا يدك يجا صاحبك الله هو يدك إسلامها صاحبك الله أي سيقاني قرابته أبها سلا سوكله هلا مرمن ها عناد أو وحى كفران واحد كهر كينيس عناده هالصمين أبدا قد كان كره وقاضٍ هدي سوقلان أما ميل أطفردو سوقلان وأنا أنتو استاكتو ماذا كردون كتو سو فريسيسو قعنت سو قبطو قعمه هذا كردون كتو أو سودويسو احترامهان سودويسو كبادو هدي قرقة جوكتو وأنا هو يلا كالميسا عمل كيو بانتو إنه كو كالميسا oo guriga khidmadiisa adeegiisa iyo waxyaalaha la mid ah inay ku kaalmeeyaan haddii qolkooda ku jiraan maaha inaad ugu gasho idin la'aan khaasan dhalinyarada iyo carruurta inaad idin la'aan ugu galaan maaha waqtigooda hurdada in laga kiciyo lama khashkhashaado maaha cuntada in la cuno iyaga ka hor ama gacanta la geliyo maaha haba yaraatee inaan been laga sheegin beena lagu sheegin ilmahaaga iyo xaaskaaga waana arrimaha u badane oo dadka ka dhaca inaadan ka fadliyeelin oo ka hormarin iyaga
waxaa soo baxay waayadan dambe iyo cusuurtan dambe dad ninku islaantiisu raali gelin xaaskiisa hooyadiisna wuu ka caraysiina walciyaadu billah walciyaadu billah meel iyaga ka sarraysa haddii la fadhiyo ha fadhiisan hooyada dhulkay fadhidaa adiga kursiga ku fadhiisanaysa aabbaha dhulku fadhiyaa adiga kursiga ku fadhiisanaysa meel ka sarraysa laa yajuus ma banaano adaabta maaha raalinimadooda raadi xataa lugaha inaad ku fidsato oo hortooda waxaan adab ahayn ku samayso ma aha ha ka faanin aabbaha inaad ku nasab sheegato ama ahaw professor ama ahaw doctor ama ahaw caalim laakiin ha ka faanin marna kama faani karto nin salafkii ka mid ah oo muxadisiinta waaweyn oo culimada waaweyn ka mid ahaa oo ardaydu kumayaal ugu imaan jirtay ayaa isaga oo ardaydii wax u dhigaya oo intaa iyo in ka badan ay hor fadhido ayaa hooyadiis xagga intay uga dhawaaqday guriga markay tiri yaa shurayx kaasi nacam yaa ummi markaasay tiri digaaga u daadi haruurkii digaaga u daadi sheekhi dhammaa waaya oo meesha hor fadhiyay markaasuu soo kacay soo booday buu digaagii wixii u daadiyey wixii kale soo kala hagaajiyey soo noqday kama weynid aabbaha kama weynid hooyada hays sharfin haddii ay kula nool yihiin waa inaad ziyaarada ku badisaa booqashada habeen iyo maalin galab iyo subax waqtigaad gurigaa gelayso waxaa leeyahay abu hurayra radia allahu canhu markuu gurigiisa ka sii baxayana hooyadiisu sii mari jiray markuu soo noqdo oo shaqadiisa ka yimaadana taanu gurigiisa gelin buu hooyadii soo mari jiray haaday baarinimadu waa taas baarinimadu waa taas balse waa yadan dambe walaalayaalo waxaa la arkayaa qof le hooyaday 10 sano maan arag aabbahay 10 sano maan أعوذ بالله من ذلك هذا العقوق 10 sano ma aqaan waxay ku nooshahay maxaad korisaa maxaad qabataa shaqada haysaa maxay tahay waxaa ku nooshahay maxaad haysaa ku maqanta maxaase khayr ku dhaafay ma is weydiisay maxaa ku dhaafay khayr waxa weeye inaad marka ziyaaradooda badiso hadday waddankaa fog joogaanna si allaale iyo sidaad ku raadin lahayd waqti walba على الأقل دوركي بلود لحدي بلود سنتكي هذا مرسو زيارته ومدن لجوكته هدي سوف تقلي ويسو إنا لابد جوكته أما مش هتكون وشائك ولا نول هذا إن نفقة كعريرين إلى أي أشتكوا ذان ويراهدان وحاسي وحسن باهنا أدرسكت عرورتادي xaaskaagan waxaad ku shubaysaa waxaan u baahnayn aabaha iyo hooyadana waa baahan yihiin oo meel waxay ku nool yihiin daciif ayu birin hada waxyaalaha dhacaya walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu ku tacab khasaarayno yani haddii aad adigu waalidka aad sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nafarayo nafaqadii iyo waxsiintii aad iyaga ku horumarinayso oo aad bilaa xisaab u siinayso waxaad ka arkaysaa durriyaddaada ayaad ka arkaysaa iyo ilmahaaga haddii kaletana iyagaa kaa goynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cuqubooyinka ugu daran inuu ilaahay soo hormariyo adduunka tii aakhiro iyadoo kuu dhimo waxaa ka mid a cuquuqul waalideynka macnaa waxa weeye marka waalidiintii markaad ciyaalkaaga iyo dadkaaga iyo xaaskaaga iyo waxaad ka hormariso oo iyaga saad doonto u raalligelayso iyagana aadan raalligelintooda raadin ama isku dayin ilmahaaga adigana kaa jaraya adduunka intaan aakhiro la gaarin
inaad waxa weeye walaalayaal aad dadka ugu karaamo badan oo aad ugu karaamayso dadka inay noqdaan hooyada uma aabbaha oo iyagu jannadaadii iyo naartaadii ah inaad ka digtoonaato inaadan caaq ku noqon oo waxay ka caroodaan ama niyaddoodu ka carooto aadan samayn si aadan naar ugu mutaysan wax kastoo aad samayso habeen iyo maalin haddaad tukato oo habeen iyo maalin wax bixiso haddii qalbiga hooyadu ama qalbiga aabbuhu oo carab ku jirto janno saad ku aragtaa oo adag tahay janno saad ku aragtaa oo adag tahay haddaad wax ka dalabto ama wax weydiisato waa inaad si wanaagsan u weydiisaa oo hadal wanaagsan oo macaan oo qabow ku weydiisaa oo hoose hadday ku siiyaan ama kuu oggolaadaan ama kugu waafaqaan u mahad celi hadday diidaan u cudurdaar dalabaadkaadana ha ku badin iyo hadalka haddii aad adigu wax yeelatana kaalmay qof walba xaqiisa sii xaaskaagu xaq buu kugu leeyahy ilmahaagu xaq bay kugu leeyihin waalidiintuna xaq bay kugu leeyihin adaa la rabaa inaad kala hoojiso waxaa hadda ka hormari la soo hadlay islaan magaalada stockholm anoo maraya waxay tidhi sheekhu ka warran haddii qof ilmaheedii wiilkeedii uu magaaladan ku nool yahay oo aanu u imaan oo aanu soo ziyaaran oo bilan la maro oo ay ka soo wareegto bilo isagoon u imaanin oo islaantiisa xaaskiisa ka hormarinaya hooyadiisa raalnimadiisa ama igu caroonaya xaaskiisa darteed hadda ka hor ayaa waxaan ka maqlay qiso yaab leh dalkaas sacuudiga aan joognay nin ayaa hooyadiis daaweynaatay ayaa la deganayd marka waxay deganayd guriga fillooyin iyo waxbaa loo dhistaa meel sare oo qol ah oo la seexiyo dadka shaqaalaha meesha la seexiyo ayay deganayd hooyadu ninka iyo xaaskiisii carruursiina waxay ku jiraan gurigay ku jiraan maalintii dambe ayay meel gaartay way soo noqotay markay soo noqotay waxay aragtay gurigiioo la xiray qolkii ay seexanaysay iyo wiilkeeda xaaskiisiioo meesha taagan oo leh qolka waan u baahannahayoo gabadha shaqaalaha baa noo seexanaysa markaasay ku tiri oo anigu xaggaan aadaya xaggaan seexanaya wallaahi meeshaad aadayso adaa yaqaan ninkiina waa daba taagan yahayoo xaaskiisa gadaasheed u taagan yahay markaasay tiri meesha aadayso adaa yaqaan shandadeediina bannaankaa loo soo dhigay shandadeedii bay qaadatay xaggey aadi waqtigaas reer deriskoodaa bay u tagtay oo albaabka ku garaacday reerkii baa soo dhoweeyey maxaa dhacay saacaddan ku socodsiiyey oo magacaawa aan idinla baryayaa bay tiri oo waa kaas gabadheedii bay teleefon u dirtay gabadhii baa waxay ku tiri ay tiri maandha ii kaalay oo iga kaxay meeshan gabadhii waxay ku tiri hooy kuma imaan karo oo ninkaygu maalintii dhaweyd aad labada maalmood nala joogtay ayuuba maaragtay qaati billaahiya taagnaa hadda inaan ku imaado ku soo qaado ma ii suurtoobi karto sidii bay kaga tagtay iyaduna oo iyadii meel cidlaa bay ku soo dhacday dadkii marka deriska ahaa iyo dadkii meesha joogay baa dad wanaagsani ku jireen oo qol inta u ijaareen qol dejiyey waxaa saa lagu samaynaya waa hooyo nin kalena wuxuu sheegay nin kale hooyadiis xaaskiisii baa ku taagnaatay weligiinna waad ogtihiinoo waxaa u dhexeeya isqaniin baa u dhexeeya hooyada iyo xaaska haddaan ilaahay u naxariisa
gabdhuhuna waa inay ilaahay uga baqaan hooyooyinka ninkan adigu ma aadan soo dhalin uurna ma aadan ku soo qaadin ma aadan soo korin ma aadan soo nuujin markuu dhibka badnaa oo kaadi iyo xaar ahaa ma aadan adigu kuma soo rafaadin isagoo weyn oo barafuun le baad aragtay hooyadiis marka waa inaad ilaahay uga baqdaa oo ilaahay uga cabsataa oo aadan ku dirin oo aadan ka goyn maxaa yeelay haddaa adigu saas samayso gabaryaha adigana carruurtaada saa kugu samaynaysa hadaad ninkan hooyadiis iyo aabbiis ka goyso adigana carruurtaada kaa goynaysa gabadhaas waxay samaysay marka waxay tiri hooyadaa baa isixirtay hooyadaa baa maaragtay waxaas iyo waxaas ugu samaysay hooyadiis bay ku taagnaatay islaantiina waxay leedahay war waxaas anigu maanan samayn nin sheekoo marka imaam masjiday u yimaadeen oo wuxuu yidhi waxaa ii yimi ninkii iyo walaalkiisoo ka weyn waxay leeyihiin na kala xukun marka islaantiina waa calacalaysaayo duqdii maamadu waxay leedahay war anigu waxaa maanan samayn maanan ku sixrin gabadhii waxay tiri yacni wiilka xaaskiisii meel aan kacbada ahayn oo dhaartaada aan ku aqbalaya ma jirto kacbadana gee ha ku dhaarato halkaa hadday ku dhaarato halkaasna kaga haray meeshii baa la tegey kacbadii baa la tegey hooyo oo haddana dulman bal ka waran adiga waxay noqotay marka meeshii markay ku dhaaratay inay ilaahay u tadarrucdo dulmiga ay ku samaynayaan wiilkeeda iyo xaaskiisa wuxuu leeyahay wiilkii weynaa oo hooyadiis isagu kaxeeyey oo soo celiyey markaanu kacbadii ka soo noqonnay oo aan maamadiina meel aniga soo qaaday gaari soo saaray ninkii iyo walaalkay iyo xaaskiisiina gaari kale ay fuuleen magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meesha ay ku dhinteen waa wiilkii iyo xaaskiisii waa inaad aada uga cabsataa ducada waalidiinta ducadoodu waa mustajaab xagga khayrka iyo xagga sharta labadaba waa inaad marka ka digtoonataa xagga sharta inay kugu duceeyaan ama kugu habaaraan haddii aad wax isku khilaaftaan oo ama wax sharciya gabadhan fur sidaan yeel waxaan yeel wax sharci ay tahay waa in arrinka si aadaabsan oo usluubaysan oo aan khilaaf iyo ku qaylin ayan jirin sharciga aad ugu bandhigtaan oo cid sharciga ku kala xukumaysa oo adigiina aan dhibi kugu soo gaarihayn inaad samayso wey inaad ziyaarato wey noloshooda iyo bacda mawdkoodaba oo aad wax u sadaqayso oo sadaqada u badiso oo ducada u badiso oo aad tiraahdo rabbi ighfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira sidaynu nebiyada ka barannay waa nebiyullaahi nuux calayhi salaam rabbi ighfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan nebiyullaahi ibraahim rabbi ighfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab inaad waalidiinta u dembi dhafto hadday muslimiin yihiin gaala hadday yihiin waa la diiday in loo dembi dhaaf weydiiyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka u socday fatxigii wuxuu dalbaday qabrigii hooyadiis inuu siyaarto waa loo ogolaaday inuu siyaarto laakiin waxaa loo diiday inuu dembi dhaaf u weydiiyo marka asxaabtu radia allahu canhum waxay leeyihiin maalintaas nebiga calayhi salaatu wasalaam aan raacnay oo aan qabrigii hooyadiis la tagnay aad buu u ooyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasoo kala soo ooyey maanan arag bay yidhaahdeen asxaabtu ridwaan ullahi tacaala calayhim haddaan walaalayaal wax ka soo qaadno waa qodobka afraade
dadkii salafka ahaa sida ay yeeli jireen bal qaar ka mid ah Muhammad ibn al-Munkadir waxa la yiri intuu dhabankiisa dhulka dhigo ayuu hooyadiis wuxuu oran jiray quumi da'i qadamaki ala khaddi hooy istaago lugtaada dhabankayga saar وحلي عروة بن الزبير رضي الله عنهما عروة وتابعي الزبير بن العوام بعد عليه رضي الله عنه ما بر والده من شد الطرف إليه قف عندها كوكل ليه وكأتكيه والد كيس بارهنما مويا فلن بأورير أورنجر مركود انت عمر بن ذر قالوا وحي هذين لأبيه ذر أبيه سيويديين كيف كانت عشرته معك سيداب ويل كان لنتين صالح وآي وناكسنا كو أهابي هذين وحيري ما مشى معي قط في الليل إلا كان أمامي هبين هدو إرع ويري وليس هرتيدو سعنجر إن لو هبين أو وحدوني يعني كإلا علي وحل علي وحدمه إمنكره ولا مشى معي في نهار قط إلا كان ورائي مالين هديت هنا وليس كذا شيء سعنجري ولا ارتقى سطحا قط كنت تحته وليسنا طبق مفعول بير أنا قال هوست كفري طبق قريق هدي لونه ليه طبق صار وليس مفعول هذا أنا هوستو علي بن الحسين رضي الله عنهما حسين ابن علي ابن أبي طالب علي بن أبي طالب باوه علي بن حسين زين العابدين وحليل هو يديس إنه وحلا عنه مرة بدن وكبق جري هل ما إذا كل عنه وحور نجري أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه وحشد أهر مرتي أيان كبق يا إنك عنت أهر مرتو فأكون عققتها أن نقضنين مركا هو يديس عاق نقضي محمد بن سيرين تابعي وين جليل كاه محدث كاه رحمه الله تعالى وحلا يرهويديس markuu ag joogo waxa loo maleyn jiray inuu xanuunsan yahay sida uu isugu dulaynayo ama uu hooyadiis hoosteeda ku yahay waxa la yiri balaqat an-nakhlatu fi ahd Uthman ibn Affan 1000 dirham geedka timirta ah ahdigii yani waqtiga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu waxay gaartay 1000 dirham marka geed ayuu wuxuu ka soo gooyay laan oo hooyadiis oo maaragtay uu siinay waxay ku yiraahdeen ma yaxmiluka ala hada maxaa arrinkan kugu kalifay adoo arkaya geedka timirta intuu gaaray wuxuu yiri inna ummi sa'alatni hooyadii baa weydiisay buu yiri wala tasalni shay'an aqdiru alayhi illa a'taytuha mana jiro shay'an awoodi karo i weydiistay illa wasiya Aisha radiyallahu anha waxay tiri laba nin oo asxaabtii nabiga alayhi salatu wasalaam kamida رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما لبضا نينو أقبار إنما بضن بأهايا هو يوينكود ومدارين تانو أرغني عثمان بن عفان وحارثة بن نعمان رضي الله عنهما حارثنا عثمان وقرنا يسانو ومن أهل الجنة وخليفة الثالث حارثة بن نعمان وأنكم النبي عليه الصلاة والسلام انتو يري جنة قلي هبين باليزولية وجنة قلي markaasaan waxaan maqlay qur'aan qof akhrinaya oo iga qarsoon markaasaan waxaan yiri wariyo yahay ninka qur'aanka akhrinaya oo jannadan ku dhex akhrinaya markaasaa la yiri wa Haarithatu ibn Nu'man markaasuu yiri nabiga kaleey salaam kadalikumul birru baarinimadu saasay yeesha baarinimadu saasay noqotaa ninkaas jannadii inuu ku dhex dabaasho ayaa ilaahay ku dhaxalsiiyay marka labadan maxay sameyn jireen waxay leedahay Aisha radiyallahu anha فأما عثمان فإنه قال وحيري ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت إلى ما لنت عن إسلامي هو يدي وجهي إلى سفي عن أفيري إمام سورة القلب احترام يهيبد أنو قوى وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه هو يديس أنتم ماذا حكى فريستو يتمها وقال ثاري جري وحا كجرا إيه وحمارة قنع وحا فولا
saxarada fuula waxa fuula ayuu boorka waxaas timaheedu saas u fagi jiray ويطعمها بيده gacantii suuna ku quudin jiray afka ku siin jiray cuntada gacantiisu ku siin jiray ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به weligiisna hadal ay amartay oo uu fahmi kari waayey ma uu yan weydiino maxaa tiri muuyan dhihin xataa yas'ala man cindaha ilaa uu weydiiyo dadka agtiisa oo yaqra'an bacda an yakhruja maa araadat ummi hooyaday maxay doontay inuu markaa yidhaahdo maxamed ibn almunkadir wuxuu yidhi aniga walaalkay isna habeenkii baryey isagoo habeenkii oo dhan salaad u soo taagan aniguna waxaan baryey habeenkii oo dhan anigoo hooyaday lugaha u duugaya wamaa uxibu ana laylatii bilaylatihi ma aanan qaateen buu yidhi habeenkiisa in habeenkayga laigu bedelo ma aanan qaateen buu ma aanan qaateen kahmas wuxuu ahaa nin sheekha wuxuu yidhi waxuu ka shaqayn jiray dhoobada iyo dhagaxa si uu 2 dirham u soo kasbo 2 daano galabtii markay noqoto faakihu ku soo iibin jiray fruit markaasuu hooyadiis u keeni jiray haddii aan wadno ma dhammaynayno laakiin salafkii ridwaanullahi tabaaraka wa tacaala calayhim rag culimmadii ka mid a waxay ka reebtay inay cilmigii u safraan waxaa ka reebay ilaalin ay ilaashanayaan hooyada inay ag joogaan oo ay u baarinimo falaan haddaba waxaan leenahay walaalayaal zamanadan dambe waxaa soo baxday caaqnimaa soo baxday badan wax badan baa soo baxay haddii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey waalidiin adduunka dul jooga waxaan leenahay ninkaasow jannaad haysataaye jannadaasna ama adigu iska dayac meelahaad ka raadinayso iyo meelaha fogfogooda adaysana ma jirtay jannadii waatan fa thamma aljanna hooyadaa lagu heday hoos taallaa ee ka faa'iidayso oo jannada ma shaqayso ama iska dayac adiga kuu taallaa haddii ay dhinteenna waxaa inoo yaal qaraabadoodiioo la xiriiriyo asxaabtoodiioo la xiriiriyo sadaqo badan oo laga bixiyo in loo duceeyo in wax awqaafa loo sameeyo masaajidda iyo ceelasha iyo meelaha iyo wax loogu daro in wax jaari ah oo aakhiro ku gaara in loo sameeyo walaalayaal baarinimadu waxaan ku soo khatimayaa waalidiinta waa baab weyn oo aad u ballaaran dadkuna moog yahay innaguna haafil ka nahay sida xaqiiqada ah aadaabtiisii iyo axkaamtiisiina wax badan aynan ka ogeyn aynuna isaga malaynayno hadal afka laga yidhi ee waxaan leenahay aan ku dadaalno jannadaas guryaha inoo joogtaa ama adduunka dul saaran nin walbow inta goorigoor tahay jannadaas sidaad u qabsan lahayd raadso ninkay ka fog tahay hooyadiisa ama aabbihiisu ka fog yahayna si degdeg ah oo aan yacnii lahayn tawaanin dadka qaar ba waxay ku odhanayaan samarkaa fiirinaya sanadka dammaan ballaangaraynayaa inaan tago xisaabtaba ma ugu jirtaba waa miskiin waa qaafil way wuxuu kala ogyahay male qofkaas waa miskiin ya miskiin qof dhintay way qofkaas marka waxaan leenahay walaalayaal war jannadaas soconaysa oo agtiina taalla haddaad haysataanna ku fara adayga oo raadsada meeshii joogta ugu taga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada hadday tageenna albaab aad kaga shaqaysataad haysataa sidaan sheegnay ka shaqayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu annagana baari naga dhigo durriyadeennana baari nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala naguna irsaaqo baarinimo jannana ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu irsaaqo wixii aan dembi galnay ama qusuur ama gaabis naga yimina ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga dhaafo ilaahayna inaan toobad ula soo noqonno oo maanta laga bilaabo waalidiinteen sida aan ku wadna aan ka dayno oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi wasallam sheekh maxamed jazaaka allahu khayran khayra aljasa in sha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuugu daro miisaankaaga xasanaadka maalinta aysan jirin meel kale iyo wax kaloo loo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha kuugu daro muxaadaradii uu sheekhu inoo soo jeediyey oo ku saabsanayd ubaarinimada waalidka oo wada dhegaysanay in sha allahu tacaala intaasay ku egtaa uu sheekhu idiin sheegay waxaan isku dayi doonaa in sha allahu tacaala inaan isku dayno
mawduuca aan dhegaysanay wixii su-aale ka yimi laakiin waxaan idiin sheegay haddii si wacan muxaadarada u wada dhegaysanay su-aalaha soo qorteen qofkii soo qoray yacni uu soo qoray inuu ka heli karo iyada jawaabta waxaanay u badnaayeen su-aalaha soo qorteen laba jawaabood marka waxaan isleeyahay labadaba waxaa ka heshan muxaadarada gudaheeda oo ah tii uu sheekhu ugu dambeysay uu sheegay hadda ah waalidkay wuxuu joogaa waddankii Soomaaliya anigu halkan aan joogaa sidee yeelaa iyo hadday dhinteen iyagana maxaan u sameeyaa marka waxaan u malaynayaa labadaba inuu sheekhu uu ku sheegay muxaadarada marka insha allahu tacaala waxaan uga gudbi doonaa su-aalaha kale ee u dhow kuwaas ee mawduucu uu leeyahay waxaa ka mid ah sheekh su-aasha koowaad oo raba inaan halkan ka soo jeediyo iyadoo waqtigu uusan badnayn waxaan joognaa halkan waxaanan ku haysanaa carruur waxaan isku daynaa inaan iyaga xanaanaynoon tarbiyayno laakiin waxaa noo muuqata inay adag tahay inaan ilmaha iyaga ka dhaadhacsiino siday annaga ha dhowto baariyaal noogu noqon lahaayeen maxaan samaynaa annagoo halkan joognaa habkee ama sidee uga dhaadhacsiinaa qiimaha uu waalidku leeyahay ilmaha halkan ku barbaaray ama ku dhashay الحمد لله شاعرك وحير بر آباءكم تبركم أبناؤكم هدا دوني سؤال ما هو إنه بار يكون نقدان waxaad tusisaa waalidkaa sida adigu baari aad ugu tahay waana si camaliya tarbiyadu u noqoto laakiin ilmahaagu haddaanu arag adigu sidaad baari waalidka ugu tahay sidee isagu hadhow baari kugu noqonay xaaladaasu hadhow way adkaanaysaa waxa weeye marka dhinacna waa wax sheegidoo waa nadariyad in la tuso dhinacna waxa weeye inuu ku arko waalidka adiga oo madaxa ka dhunkaraya adigoo fadhiga ku soo dhaweynaya adiga oo quudinaya adiga oo cuntada siinaya marka haddii ayaan waalidkiin la dhaweyn tarbiya camaliya in la helo weeye kaxaya oo waalidka u geeya kolalka qaarkood oo ha arkaan oo ha kula ziyaartaan haddii ay suuragal tahay oo aanay suurtoobi karin in meel lagu wada noolaado oo ummad shataad ku jirta aan nahay oo dhibaataysan oo qax iyo rafaad ku jirta cala alaqal waa in loo tago oo kolalka qaarkood la siyaarto adoo ilmihii wada oo waalidka aad tusiso oo uwahood iyo iyadood aad tusiso oo adigu sida aad ugu baarifalayso ay arkaan arrinkaas camaliga ah ayaa ugu wanaagsan tarbiyada wallahu a'lam su-aasha kale xigta waxay leedahay isla mawduuca ku dhow sheekh iyamaan hormarinaa jihaadka faradulcaynka ah iyo u baarinimada waalidka keebaan hormarinaa الحمد لله dad hadday muslim ah meel joogaan oo gaalo ku soo duusho meeshaa dadka jooga weeye waxay ku noqonaysaa fardul cayn dadka meeshaa joogo markaas oo kale jihaadku markaa idin ma laha oo waalidka idinkiisu markaa shardi maaha hadduu fardul cayn noqdo jihaadku ama haddaanu markaa adiga farducayn kugu ahayn ama aad ka fog tahay meesha markaa dagaalku farducaynka ku yahay waalidka ayaa horeeya wallahu tacaala su-aashan kale waxay leedahay sheekh hooyaday ayaa waxay igula talinaysaa inaan soo geliyo waddanka ninka walaashay qaba oo aan ku soo geliyo guur ahaan inaan anigu uu ninkaygii yahay marka ma hooyaday baan ku adeecaa oo dumaashigay baan idhahdaa waa ninkaygii mise maxaan sameeyaa sheekh alxamdu lilah waxaan sheegnay waalidka waa la adeecayaa amarkoodana waa la qaadanayaa wixii aan ahayn macsi ilaahi subxaanahu wa tacaala id laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka arrintaasuna waa arrin dee khilaafsan shareecada hadday shareecadii khilaafsan tahayna waalidka looguma hoggaansamayo laakiin waalidka inaad raalli geliso oo siyaabaha aad ku raalli gelinayso adoo aan amarkaa fulinayn ayaa lagaaga baahan yahay inaad iswaafajiso wallahu aclam
su-aashan kale iyadana waxay ku soo noqonaysaa carruurta halkan joogta iyo waalidkooga iyo dadka ay bulshada ay la nool yihiin sheekh maxaan samaynaa carruurta halkan joogta haddii bulshadii ay la joogeen dadka aan yacni aan ahayn muslimiinta ay u jeedaan sida ku qoran maxaan samaynaa dadka ay uga xoog roonaadeen waalidkii ilmaha dhalay dadka aan muslimka ahayni maxaa la yeelayaa ma meeshooda iyagoo jooga lagu booqanayaa oo aad ka warhaynaysaa mise wax kale ayaa bannaan oo waxaan qaadanaa waa layga xoog roonaaday ilmahayga cid kalea la wareegtay oo waxaan samayn karayaa haba yaraatee ma jirto alxamdulilah waxaan u malanayaa ilmaha iyo joogitaankooda dhulalkan iyo arrimahaas wax badanaan ka hadalnay oo iyada hadda ku soo celcelin uma baahna ilmaha waxa weeye si uu u barto yacni tarbiyadii islaamiga ahayd oo kaamilka ahayd waa inuu helaa bii'a islaamiya iyo environment islaamiya waa inuu helo weeye marka taasna waalidka ayaa mas-uulka ah oo waxa weeye mirihii aad beerto unbaad guranaysaa inaad adigu marka ku dadaasho ayaa loo baahan yahay sidaad bii'a islaamiya ilmaha u geyn lahayd waana loo ka adkaadayna hadhow xujo keligeed ma noqonayso haddii aadan asbaabtii sharciga ahayd aadan qaadan oo aad wax ku badbaadin lahayd wallahu tacaala aclam labadii muxaadaree baxay su-aalaha ugu badan ama dadku soo codsanayaan maanaan hilmaamin oo ah dad badan oo xanuunsanaya qaar carruurta ka xanuunsanayaan qaar waalidkood ka xanuunsanayaan qaar dhibaato kala haysato dhammaantood waa ognahay mar walba oo muxaadaro yeelano ama culimmadu wada joogaan ama qaarkood joogaan way isu soo koobaynaa waayo aada ugama gaadhno inaan qof kasta tiisii si gaara u tilmaano laakiin sheekh maxamed dadku aad bay usoo codsanayaan dhibaatadaas caamka iyo mid gaara qof ka hayso oo xanuun u badan ilma hadday yihiin waalid hadday yihiin qof kaloo dhibaataysan mid oo camaliyad sugaya ama qaliin oo ilahay ka rajeynaya ilaahay inuu u fududeeyo sheekh maxamed waxaan rabnaa insha allahu tacaala intaynaan gabagabayn su-aalaha waxaan rabaa inaan tan soo horreysiiyo oo dadka aadka u fara badan kuwo dibadda ka soo qortay kuwo joogaba inaad markaasi codsigaasi ducada aad sheekh kusoo dhawaatid alxamdu lilah jalsadeenna in sha allah waxaan ku khatimanaynaa ducadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa toosan nagu hanuuniyo ilaahay kuwa xanuunsan inuu ilaahay caafiyo kuwa maaragtay waddada ka lumay inuu ilaahay soo hanuuniyo ilaahay jidka ku soo celiyo ubadkeenna inuu ilaahay islaaxiyo durriyaddeenna inuu ilaahay islaaxiyo wiilasheenna iyo gabdhaheenna inuu ilaahay islaaxiyo guryaheenna iyo dumarkeenna iyo carruurteenna iyo raggeenna waa inuu ilaahay islaaxiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba inuu hanuunka nagu irsaaqo jidkiisa toosanna ilaahay nagu sugo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay nagu sugo ilaahay dembigeenna inuu dhaafo ilaahay dembigeenna iyo dembigii waalidiinteenba inuu dhaafo janno inuu ilaahay nagu kulmiyo ilaahay subxaana wa tacaala toobad saalixa inuu ilaahayna waafajiyo qabriyadeenna inuu ilaahay nuuriyo sakaraatulmowtkana inuu ilaahay noo fududayo ilaahay qabriyadana noo waasiciyo qabriyadana ilaahay aanu mugdi nagaga dhigin ilaahay noo nuuriyo siraadkana ilaahay nagu sugo maalinta qiyaamana kurbadeeda ilaahay naga faydo ilaahay kuwa harkiisa harsadana ilaahay naga dhigo janno kuwa u tallaabana inuu ilaahay naga dhigo dembigeenna iyo dembiga waalidiintanba inuu ilaahay dhaafo muslimka meel kastoo joogaan inuu ilaahay guul iyo nasri siiyo ilaahay subxana wa tacaala rucbiga iyo dhibtana inuu ilaahay ka dulqaado waddamadooda inuu ilaahay xoreeyo ilaahay gumaysiga iyo dhibaatada inuu ka dulqaado meel kastoo ay joogaan ilaahay nasri iyo guul inuu siiyo muslimka meel kastoo ay joogaan gaaladana inuu ilaahay ku jebiyo meel kastoo ay joogaan sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi wasalam waxaan ka codsanayaa ma dhammaynina inay dhegaysataan insha allah yar bay noo dhiman marka aada u dhegaystay insha allahu tacaala intaanan gabagabayn waxaan rabaa inaan idiin sheego iclaanka jira oo ugu muhiimsan doona insha allahu tacaala inaan isku dayno mawduuca aan dhegaysanay wixii su-aale ka yimid laakiin waxaan idiin sheegi haddii si wacan muxaadarada u wada dhegaysanay su-aalaha soo qorteen qofkii soo qoray yani uu soo qoray inuu ka heli karo iyada jawaabta waxaanay u badnaayeen su-aalaha soo qorteen laba jawaabood marka waxaan isleeyahay labadaba waxaa ka heshan muxaadarada gudaheeda oo ah tii uu sheekhu ugu dambaysa uu sheegay hadda ah waalidkay wuxuu joogaa waddankii soomaaliya anigu halkan aan joogaa sideen yeelaa iyo hadday dhinteen iyagana maxaan u sameeyaa marka waxaan u malaynayaa labadaba inuu sheekhu uu ku sheegay muxaadarada marka insha allahu tacaala waxaan uga gudbi doonaa
su-aalaha kale ee u dhow kuwaas ee mawduucu uu leeyahay. waxaa ka mid a sheekh su-aasha koowaad oon raba inaan halkan ka soo jeediyo iyadoon wakhtigu uusan badnayn. waxaan joognaa halkan, waxaanan ku haysanaa carruur, waxaan isku daynaa inaan iyaga xanaanaynoon tarbiyayno, laakiin waxaa noo muuqata inay adag tahay inaan ilmaha iyaga ka dhaadhacsiino siday annaga ha dhowto baariyaal noogu noqon lahaayeen. maxaan samaynaa annagoo halkan joognaa? habkee ama sidee uga dhaadhacsiinaa qiimaha uu waalidku leeyahay ilmaha halkan ku barbaaray ama ku dhashay? الحمد لله. شاعرك وحير بر آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا دوني سؤال ما هو إنه بار يكون نقدان واحد تصيصا والد كاسدا أدوق بار أدوقته وأنا تي عملية تربية ونقطه، لكن المها هدانو أرق أدوق سدا بار والد كأوقته هاي سدا يسقو هذا بار يكون نقنه. xaaladaasu hadhow way adkaanaysaa. waxa weeye marka dhinacna waa wax sheegidoo waa nadariyad in la tuso, dhinacna waxa weeye inuu ku arko waalidka adiga oo madaxa ka dhunkaraya, adigoo fadhiga ku soo dhaweynaya, adiga oo quudinaya, adiga oo cuntada siinaya. marka haddii aan waalidkiin la dhaweyn tarbiya camaliya in la helo weeye kaxaya oo waalidka u geeya kolalka qaarkood oo ha arkaan oo ha kula ziyaartaan haddii ay suuragal tahay oo aanay suurtoobi karin in meel lagu wada noolaado oo ummad shataad ku jirta aan nahay oo dhibaataysan oo qax iyo rafaad ku jirta. cala alaqal waa in loo tago oo kolalka qaarkood la siyaarto adoo ilmihii wada oo waalidka aad tusiso oo uwahood iyo iyadood aad tusiso oo adigu sida aad ugu baarifalayso ay arkaan. arrinkaas camaliga ah ayaa ugu wanaagsan tarbiyada. wallahu aclam. su-aasha kale xigta waxay leedahay isla mawduuca ku dhow. sheekh, iyamaan hormarinaa jihaadka fardulcaynka ah iyo u baarinimada waalidka, keebaan hormarinaa? alxamdu lilah. dad hadday muslin ah meel joogaan oo gaala ku soo duusho meeshaa dadka jooga weeye waxay ku noqonaysaa fardulcayn dadka meeshaa joogo. markaasoo kale jihaadku markaa idin ma laha oo waalidka idinkiisu markaa shardi maaha hadduu fardulcayn noqdo jihaadku. ama haddaanu markaa adiga fardulcayn kugu ahayn ama aad ka fog tahay meesha markaa dagaalku fardulcaynka ku yahay, waalidka ayaa horeeya. wallahu tacaala aclam. su-aashan kale waxay leedahay sheekh, hooyaday ayaa waxay igula talinaysaa inaan soo geliyo waddanka ninka walaashay qaba oo aan ku soo geliyo guur ahaan inaan anigu uu ninkaygii yahay. marka ma hooyaday baan ku adeecaa oo dumaashigay baan idhahdaa waa ninkaygii, mise maxaan sameeyaa sheekh? alxamdu lilah. waxaan sheegnay waalidka waa la adeecayaa, amarkoodana waa la qaadanayaa wixii aan ahayn macsi ilaahi subxaanahu wa tacaala. id laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq. marka arrintaasuna waa arrin dee khilaafsan shareecada. hadday shareecadii khilaafsan tahayna waalidka looguma hoggaansamayo, laakiin waalidka inaad raalli geliso oo siyaabaha aad ku raalli gelinayso adoo aan amarkaa fulinayn ayaa lagaaga baahan yahay inaad iswaafajiso. wallahu aclam. su-aashan kale iyadana waxay ku soo noqonaysaa carruurta halkan joogta iyo waalidkooga iyo dadka ay bulshada ay la nool yihiin. sheekh, maxaan samaynaa carruurta halkan joogta haddii bulshadii ay la joogeen dadka aan yacni aan ahayn muslimiinta ay u jeedaan sida ku qoran, maxaan samaynaa dadka ay uga xoog roonaadeen waalidkii ilmaha dhalay dadka aan muslimka ahayni maxaa la yeelayaa? ma meeshooda iyagoo jooga lagu booqanayaa oo aad ka warhaynaysaa, mise wax kale ayaa bannaan oo waxaan qaadanaa waa layga xoog roonaaday, ilmahayga cid kalea la wareegtay oo waxaan samayn karayaa haba yaraatee ma jirto?
الحمد لله وحنو ملنيا ilmaha iyo joogitaankooda dhulalkan iyo arrimahaas wax badan ka hadalnay oo iyada hadda ku soo celcelin uma baahna ilmaha waxa weeye si uu u barto يعني تربية إسلامية هيدا كامل كهيدا وإنه هلا بيئة إسلامية يعني environment إسلامي وإنه هلا وهي مركتاس نوالد كأي مسؤول كه أو وحوي يمريه أدبرته بتقرنيسا إن أديكو مركا كود داشو هي اللبة هي سيدات بيئة إسلامية المها وقيل لهي وأنا لو كأد كاضينا هدو حجة كليجد من قنيسو هدي أذن أسبابتي شرعية هاي أذن قاضن وهدو حكومة بعدين والله تعالى عنه. labadii muxaadare baxay su'aalaha ugu badan ama dadku soo codsanayaan maanaan hilmaamin oo ah dad badan oo xanuunsanaya qaar carruurta ka xanuunsanayaan qaar waalidkood ka xanuunsanayaan qaar dhibaato kala haysato dhammaantood waa ognahay mar walba oo muxaadaro yeelano ama culimadu wada joogaan ama qaarkood joogaan way isu soo koobaynaa waayo aad ugama gaadhno inaan qof kasta tiisii si gaara u tilmaano laakiin sheekh maxamed dadku aad bay u soo codsanayaan dhibaatadaas caamka iyo mid gaara qofka hayso oo xanuun u badan ilma hadday yihiin waalid hadday yihiin qof kaloo dhibaataysan mid oo camaliyad sugaya ama qaliin oo ilaahay ka rajeynaya ilaahay inuu u fududeeyo sheekh maxamed waxaan rabnaa insha allahu tacaala intaynaan gabagabayn su-aalaha waxaan rabaa inaan tan soo horreysiiyo oo dadka aadka u fara badan kuwa dibadda ka soo qortay kuwa joogaba inaad markaasi codsigaasi ducada aad sheekh ku soo dhawaatid الحمد لله جلسنا إن شاء الله وحنكو ختمنا دعاء إلهي سبحانه وتعالى وحنك برينا إنه إلهي سبحانه وتعالى جدكي ستوصل نقوها نونيو إلهي كوا حنوصن إنه إلهي عافيه كوا ماركتي وضد كلمي إنه إلهي سوها نونيو إلهي جدك كسو عليو وبد كان إنه إلهي إصلاحيه دريدنا إنه إلهي إصلاحيه ويلشنا قبلها إنه إلهي إصلاحيه قريها إنه دمر كان يعرفتها إنه يرجعنا وإنه إلهي إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى دمانتين بإنه هنونك نقول إرزاقه جدكي ستوصلنا إلهي نقصه كتابك سي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي نقصه إلهي دنبقنا إنه ضعفه إلهي دنبقنا دنبق والدين تنب إنه ضعفه جنة إنه إلهي نقول كلميه إلهي سبحانه وتعالى توبة صالحة إنه إلهي نوافجيه قبريدنا إنه إلهي نوريه سكرات الموت كان إنه إلهي نوفض ضيه إلهي قبريدنا نواسعيه قبريدنا إلهي أنه مقدنا قدقنا إلهي نوريه صراط كان إلهي نقصه ما أنت قيامنا كربدا إلهي نقفيده إلهي كوا هركي سهر صدنا إلهي نقدقه جنة كوا وطلابنا إنه إلهي نقدقه دنبقنا دنبق والدين تنبا إنه إلهي دافه مسلم كميلك استجوغان إنه إلهي يقول يا النصر السيو إلهي الرحمن سبحانه وتعالى الرعب يدبتنا إنه إلهي كدو القاضه وضمضه إنه إلهي حريه إلهي قميسي يدباته إنه كدو القاضه ميلك استجوغان إلهي النصر يقول إنه سيو مسلم كميلك استجوغان قال إن إلهي كجبي ميلك استجوغان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ka codsanayaa ma dhamaynina inay dhegaysataan insha Allah eer baynoo dhima marka aad u dhageystay insha Allah taala intaanan gabagabayn waxaan rabaa inaan idin sheego iclaanka jira oo ugu muhiimsan ilaahi subhanahu wa ta'ala toobad saalixa inuu ilaahay nawaafajiyo qabriyadana inuu ilaahay nuuriyo sakaratul maut kana inuu ilaahay noo fududeeyo ilaahay qabriyadana noo waasiciyo qabriyadana ilaahay aanu mugdina kaga dhigan ilaahay noo nuuriyo siraadkana ilaahay nagu sugo maalinta qiyaamana kurbadeeda ilaahay naga faydo ilaahay kuwa harkiisa harsadana ilaahay naga dhigo janno kuwa u talaabana inuu ilaahay naga dhigo dembigan iyo dembiga waalidiintanba inuu ilaahay dhaafo muslimka meel kastoo joogaan inuu ilaahay guul iyo nasri siiyo ilaahay ruxmaha subxaana wa tacaala rucbiga iyo dhibtana inuu ilaahay ka dulqaado waddamadooda inuu ilaahay xoreeyo ilaahay gumaysiga iyo dhibaatada inuu ka dulqaado meel kastoo ay joogaan ilaahay nasri iyo guul inuu siiyo muslimka meel kastoo ay joogaan gaaladan inuu ilaahay ku jabiyo meel kastoo ay joogaan sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasallam waxaan ka codsanayaa ma dhamaynina inay dhegaysataan insha allah eer baynoo dhima marka aad u dhageystay